soo dhawaada qisada qaybteedii labaad. wiilkii agoonka ahaa ee hooyadii ay soo korisay, haddana waxbarasho ay ka bixisay ilaa uu ka weynaaday. gabar ay u guurisay, gabdhaha midii ugu fiicnayd ay u guurisay. waa markii aragtida ay ahayde ay si fiican u soo dhoweysay, ay guurka fiican u guurisay, ee shaqada helay, ee haddana sida xun ugu jawaabay, ee hooyadiis ka doortay haweeney uusan aqoonin ka doortay. waxaa ahay qisadu tani. wiilkan wuxuu ahaa agoon. inkastoo agoon uu ahaa, habartuna ay kolkolin jirtay, wax kastana uu baahdo ay siin jirtay, ayaa wuxuu ugu abaalguday. wiilkii agoonka ahaa wuxuu hooyadii ugu abaalguday abaaldarro. waxay Soomaalidu ku maamahdaa hal ninkii koriso ayaa dila ama dilkeeda iska leh, ayaa maamaah Soomaaliyeed ahayd. waxaad ogaataan intaan qisada qaybteeda aan sii dhammaystirin, waxaad ogaataa wiilow, hooyada iyo islaantaada, hooyada ayaa kaaga wanaagsan. maxaa yeelay hooyada mushkilad badan ayay kula soo martay. gabarey, waxaad ogaataa adigana hooyada inay mushkilad badan kula soo martay, oy kula soo daalaa dhacday, adiguna aad mari doonto waddadii aad hooyada la martay. haddii aad wanaagsanaato, ilmahaaga ayaa ku wanaagsanaan doona oo ku kolkolin doona markaad waayeel noqoto, haddii aad hortood dhimaninba. waxaan kuu sheegay gabarey, inaad hooyada baari u noqoto iyo ninkaaga hooyadiisba. maxaad ogaataa kamaa tudiinu tudaan, ayaa carabtu ayay ku tiraahdaa. sidii waxaad diin ka dhigato, waxa dhaqanka aad yaraantaada soo marto, ayaa haddana weynanka ayaa kugu dhammaan doonaa. qisadanaan sii wadee. waxaa dhacday markay hooyadii ay soo korisay, shaqada markuu aado, habarta maamada wiilka dhashay, islaantii guriga la keenay ee ilmaha dhashay, ayaa waxay ku samaysay maamadii wax aan loo dulqaadan karin. qof kastaoo damiir leh uusan yeeli karin, maskaxdiisana aysan qaban karin, yay samaysay islaantaasi. waxay samaynaysaa markastoo ay guriga wiilka u tago, inay maamada oo sodoheeda inay hurufto, oo hadalla aan wanaagsanayn, oo loo midaan dayin, oo qof waalid la rabo in laga ilaaliyo, inay ku samayso. arrintaana waxaa keentay wuxuu sameeyey, wiilkeeda ayaa wuxuu ka doortay islaan uu soo guursaday. maamaha Soomaaliyeed waxay ahayd naas la nuugi iyo mid la taabto kee wanaagsan bay dhihi jireen. waxay markaa maamahu ay khaldan tahayoo mid la nuugay waxba waa laga soo tagay bay dhahayaan. maxaa yeelay caanahaad ku kortay waa caanaha naaska aad nuugtay. marka mid la taabtay nacfi badan ma leh. marka waxba laga yaabaa beri inaad kala tagtaan ayaaba suurowda. waxaa dhacday markaa qisadii aan iisii wadee, maamadii inay si xun oo la dhaqanto islaantii, haddana way ka dhaamisay. waxay ku tiraahdaa, naagtii baa ka dhaaminaysa ama ka buuxisay kutarukuteen iyo warar aan loo baahnayn oo been abuura, ayay waxay ku dhahdaa mar kastaba, islaantan hooyada ah dhib bay igu haysaa, way caqabadaysaa, saasay yeeshaa mar kasta. maxaa la yidhi, Soomaalida waxay ku maamahdaa uur fadhiya hal fiiq ah ayaa kicisa, ayay ku maamahaa Soomaalidu. sidaa darteed waxaa markaa mar kasta maadaama maamadu marka inta hore xoogaa ay tabar lahayd, ilmihii ayaa looga tegi, islaantu meelaheeda iska aadaa, ilmihii marka iyadoon baa haysa mar kastaba, iyadoon baa haysa. marka waxaad ogaataa markay sidaa ay samaysay, ayaa maalin maalmaha ka mid a ayaa maxay tiri, ninkii bay la hadashay, waxay ku tiri, niyo waxaan u baahannahay inaan aadno
shoobin iyo dukaamaysi inaan aadno oo ilmahana hooyo aan kaga tagno ayay ku tiri. Ama maya waxay tiri ilmahana waan kaxaysanaynaa, maamadana guriga ha noo sii waardiyeyso. Gurigu waa guri baas, guriga hal qol bay maamadu ka degan tahay, hase yeeshee qolkeeda lama xaaqo, lama tirtiro, goosha looma goglo, wax markaa dacni iyo ihaano meeshii ugu dambeysay ayay kula kacday maamadaasi. islaanta waxay kula kacday duqdaasi waxaan loo gegsan karin, loo dulqaadan karin, qof damiir leh uusan yeeli karin, aqbalaynina. hase yeeshee waxaa dhacday, waxay tiri ina mari. duqdi baa waxay tiri hooyo, waxay ku yidhahdeen wiilka waxuu ku yidhi hooyo iska sijo guri buu yidhi. markaas xageed aadaysaan bay ku tiri hooyo waxaan aadaynaa, marka hadalka anaa hadda qurxinaye hooyo ma jirto, waxaan aadaynaa dukaamaysi ayaan aadaynaaye iska sii joog ayay ku dhaheen. marka waxay ku tiri maamadii duqdaas waxay ku tiri maya hooyo, anigu waa ina raacayaa, guriga dhib buu yahay, waan la soo luga baxayaa, waa ina raacayaa ayay yidhaahdeen yay tiri maamadii. marka si rudli ah ama maskax adayga ama hadal adag ayuu ku yidhi dhammal ina keen buu ku yidhi, ina keen. sababtoo dheg war cuntay war labaad ma cunto. islaanta ayaa ku dirtay hooyadii oo soo kolkolin jirtay oo meesha arta ka soo bixisa abaaraha iyo rafaadka mashaqada soo marisay, dhaxanta qabow iyo jirri u soo dulqaadatay. marka waxaa dhacday arrin aan la yaab lahayn oo la yaab leh oon la filanaynin oo ka sii daran. marka waxaa dhacday wiilkii wuu isoo raaceen, waxay tageen meel dukaamaysi ayay tageen. meeshii markay tageen waxaa dhacday sidan soo socota. wuxuu ku yidhi ilmihii iyo gabdhihiisii iyo islaantiisii wuxuu ku yidhi waxaad doontaan qaata, hawaaba yeelin oo ku yidhi adigu isku soo wado duduubo. maamadii waxay soo qaadatay faraanti yar oo dahaba ama silsilada qoorta lagu xidho ayay soo qaadatay. hooyo tanbixiyay tiri. markaase waxay ku yidhaahdeen, islaanti baa soo bood waxay ku tiri gabalkaagu wuu dhacay, waqtigaagu wuu dhammaaday, maxaa kugu dhacay, maxaa iska xaragayn. markaasuu wiilkiina wuxuu ku yidhi hooyo maxaa ku fallabteeda. markii dambe islaanta waxay ku tiri iska siibay ku tiri ilmaha noo waardiyeyse, ilmahay noo haysaaye. markay maamadii intay xanaaqday, markay artay qaabka islaanta u dhaqmayso, intay dhulka ku tuurtay waxay ku tiri waayahay bay tiri. markaas haddana way u ducaysay, duco habaar u eg ayay ugu ducaysay. waxay ku tiri hooyooy, sideed adduunyada bilicdeedii iyo quruxdeedii aad iga ilaalisay, adigana ilaahay naarta ha kaaga ilaaliyo ayay ku tiri. maxaa yeelay hooyadu waa wax beer nugul oo beer jilicsan oo miskiina. marka intay habaari lahayd oo dhihi lahayd duf ku bax, cuqubaa la kuu rid, dhimo dhulka hoos ka mar, baaba intay dhihi lahayd way u ducaysay. ma laga yaabaa adigaan dhagaysanaya warkayga ee qisada inaga sheekeynaya inaad hooyada aad ku tahay lid? ma laga yaabaa?